وكاساسة وبدنيس. There you go. شوفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وإن السلام عليكم غير كبدن meel kasta ay joogtaan waan salaamaya adduunka dacaladiisa waa walaashiin Hodan is cooking today masha Allah tabarakallah waxaan rabnaa inaan xalwad karino insha Allah waxaan jeclaystay inaan la wadaago xalwada ingredientskeeda insha Allah أعوذ بالله بكلمات الله التامات من شر ما خلق الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه إلهي بمهد السجناتي إلهي نبض نوسوك عيه بمهد السجناتي ماشي عم كويس دكسي حلوده وكرناي. Good morning guys. I am sister Hodan is cooking. So today I need to make they call halwa. It's sweet thing. Somalian people eat sweet. Sometimes it's not all the time, but I want to make halwa. So I'm gonna show you guys how I add it together and how many water I need. The all stuff I'm gonna add together. So I'm gonna show you. Right now I started the water. So I'm gonna start the content this cup. 12 cups this water I add here. I put here. And then I counted until 12. And then I put the stove and then it's gonna when the boiling. I'm gonna show you step by step. Inshallah. Enjoy the video. Like and share and comment, and I appreciate that. Thank you so much to watching the video. Okay, asxaabay inshallah biyo hadda noo furaya koobkan 12 kiisa ku furaya digsiga inshallah waan noo saabinaya kow waaragtaan labo saddex afar shan lix toddoba sideed sagaal toban toban labiyo toban. Then this is 12 cups water I put here the bowl. So right now I put the stove and then I cover, and then when they're boiling I add the sugar same time. Okay, marka hadda biyo intaan ku shubtay 12 bakeeri oo biyo ah waxaan rabaa inaan dabka saaro kadib insha Allah sokorteen ku daraaya iyo wixii kale ku daraay aan ku shubaa insha Allah. alaabta intii ugu diyaarsan dabka waa ka soo shidan yahay aragtaan shiday dabka sax digsiga waa kana. bismillaahir rahmaanir rahiim. allahumma salli ala waa saaray dabku saaray yahay. Okay, marka waxaan ku darsanayaa hal xabo caleenta shaaha, hal xabo see this is tea bag. I added 2 bags. So you see this is 2 tea bag I took out later. laba xabo caleen ku ritay hadhow aan ka bixinaa insha Allah.
Kan waa daboolkiisa. This is the cover. I need to cover. I wait until the water is boiling. I will come back when I... Hello guys, assalamu alaikum. I'm back. I'm back guys. waan soo noqday walaalahayga maasha Allah. Hadda biyo way noo karkareen mujadan. Qiiqa adduunka ka baxay ma fahmi. Waxaan rabaa inaan ku darsado aan ka bixiyo caleentii, okay? Caleentii aan ka bixinayaa. Wataas mujadan. Halkaan ku ritay. 1 2. I add 2, right? 2 tea bag. Waa ka soo baxshay. Took out the 2 tea bags. Here I have sugar. This sugar it was 6 cup. This cup. Okay, sokorta waa 6 bakeeri. Intii uu jirto haddana idinku arkay hortiina ku cabiraya. 1 bismillah. 2 3 4 5 and 6. Okay, 6 cups. This sugar, white sugar, white. This is the brown sugar. I add 2 cups. This one maxaan ku daray 2 koob oo kana. Mujadan 1 see 2. That is 2 cup brown sugar, 6 cups white one. So waxaan ku daray 2 brown ah iyo 6 bakeeri oo sokorta cada. Insha Allah. Halkaas waa halkaas. Taas ku dhex geli. Okay. Biyahana waa 12 cup oo biyo ah. La socdaya asxaabay. Haddana waxaan halkan noogu hayaa waraangadii. Warango. Mujadan. This is cornstarch. This is the cornfield. 100%. This is 2 cups. This is in here 2 cup. This one, this cup. Inta baakada waxaan ku jirta 2 bakeeri oo bahashaan ku jirto meeshaan. Waxaan ku shubtay halkaan ay ugu jiraan. Aragta sama 2 koob waay oo bahashaan xirana. Bahasha calaamadeedana waa tana waa 16 ounce waay. 16 ounce waay. Waa 1 pound. See halkaan? Aragta sama halkaan. Sorry, light-ka idinka haya. Marka biyaha kan labadiisa aan ku shubaya dis. 2 koob oo tana biyaha kan labadiisa aan ku shubaya. See? 1 koob. And 2 koob. Okay? 2 cups water. Marka waxay isku imaanaysaa halkaan waxaan ku haystaa color food coloring. So I add, this is the deep orange. Okay? You see the teaspoon? Halkaan qaadada dabadeeda ayaan gelinayaa 1 waa oranjada 2 teaspoonka yariisa 3 teaspoonka yar dabadiisa waa okay. Waa orange kan waay colorkan waay orange. Halkaan maxaa waay red. You see this is red. I add just a little bit. It's not much. Okay, you see? This is that one only. That's it. Hala yaran ku daro gaduudka.
markaas wuxuu isla noqonayaa qurux oo ka dhigaya ma fahanteen qurux isku noqonay waa isku walaaqaya sorry guys ina walaaqdid waraangadi biyaha marka isku cabirtid fara biyo caadi oo 12 bakeeri ahaa iyo 2 koob oo waraangada ku qastay waa 14 isku imaanayaan okay waraangada marka xaluud ku dareysid waa ina walaaqdaa maanta dhan walaaqdaa you have to when you add the cornstarch the water the hard water and sugar you have to you know mix it you see it's ready just I add together and then here meesha waxaan ku shubanayaa subag iyo sokor saliid I'm sorry butter this kind of butter okay hello subag waay iyo the oil vanilla oil make ready here okay I'm back saxaabay soo noqday xalwadii dadtaas way adkaatay samaartaan inoo adkaatay samaartaan hadda waxaan ku darayaa subagii iyo saliidii iswatay 1 cup 1 cup I added the butter and oil 1 cup ku daray so I mix it mix see they come strong and then they boil and then I cover it okay enjoy the video like share subscribe halka waa isku daray walaalayaal waa isku daray way adkaatay xaluudii mujada adeegay noqotay hadda waa daboolka saara insha Allah marka way badbadaysaa bad waxaan sugnaa waa markay isku dhaxdhacdo oo ma sha Allah isku noqoto qori dheerna inay haysatid you have to have long stick okay and also strong stick qori dheer inay haysatid oo adag haladu way badbadaa qofka gacanta ka gubi kartaa marka waa inaad ka taxadirtaan insha Allah gacmaha ka gubanina markay saa isku markay ugu dhibaanta xawaay marka hore isku dareysid inay ka kuskuusan iyo marka ka dejinaysa labadaas ay ku baahan inta u dhaxaysa daboolka la saare danaha kala iska qabsanaysa okay labadaas you have to the two worst thing was when you start the cooking the halwa you have to mix together if you're not and then they kind of like bad it's not good so when you ready they took off the stove you have to stand up and mix it after that you dump to the bowl the plate so that's the worst time they have 2 times the worst time yeah between the 2 times when you first started beginning and the ending between just to cover it and the left whatever you can do it then you come back after 2 hours it's supposed to cook 3 hours if they have good stove they actually 2 hours and 30 minutes but if they have the stove slow they have to cook 3 hours باش هذه دب في عنكو هيستو وحي كريسة 2 ساعة عبر لكن الدب كذا وحوغان نحوسي هاي 3 ساعة يكون صارانيسا هذا يسوح قدر سنبو marka hadda way soo badbadaysaa si maanta dhan waa walaaqaya walaaq waa marka u hore ku baahan tahay bahashan
color كذا حتى قرح ونقضي. You see the color? I add two tea bag and 2 colors, red and orange. It's gonna come this color, so nice. So it's coming beautiful color. marka laba color ku darto aad u quruxsanaan iyo caleenta shaaha ma sha Allah. waxa la isku dhex mix gareeyaa fiican ma sha Allah. see hadda soo badbadaysaa maqasha baq saliidaas. Now it's boiling, starting the boiling, and then I cover. I need to cover it, so I'm gonna leave alone there until 1 hour, and then I come back, I check out, and then I mixed it, and then I cover again. Then I left. The wala Sarah had their tawax to get illa hal saaca ka maqnaana. Markaan saaca ka maqnaada kadib ku soo noqon hal mar aan isku dhex walaaqaya. Daboolkeeda ku cilna waa iska tagaa. waxba shido isku ma gelinayo. Okay, halkaas dartaan waxaan soo qaatay wadadoosa. daboolkiisi waa kana daboolka saaraya. halkaas خلاص maanta dhan meesha si ku karowsaa isku soo noqonaa markaan ka dejin rabo insha Allah. Hello, I'm back. asxaabi oo soo laabtay ma sha Allah. xaladii waa taas midaan kaasay noqotay. Okay, hadda ilaa markii hadda soo laabtay hadda soo yar adkaanaysaa insha Allah. kuma joogto insha Allah باذن الله. halkaas كده دي ولي لكن kaas u badbadaysaa. xalad qurux badan. halkaan waxaan ku haystaa juice aan shiiday iyo heel aan isku daray. Okay, intaan waxaan ku haystaa heel aan shiiday dhulka ku daraaya hadda idama tusin. marka juice waa kana ku daray. Okay, magacaas ah. This is to make it smell good. Somali called juice. The English they say walnut. Okay, this kind, and the hail. I add hail too. So and back I gonna see. It's gonna be like this. Not yet though. Not yet. The more hours left. So now I'm gonna show you guys. It's gonna be like this, and then I come back when it's ready. And come back, okay? I know it's almost 1 hour, okay? So I'm gonna cover this, okay, guys? And then I come back when I add this one and this one, yeah, together. See, it's look like this. Waa juice-kii soo shiiday saas u ekaaday. kan heelkii shiita waay. marka insha Allah waa ku dari doonaa. waxa caafimaad waa heelka iyo juice-ka ila socdaya insha Allah. ma sha Allah tabarakallah. ilaahay idin fududeeyo qofki karin doono. wax iska fudud insha Allah. inay dhib badan tahay loo maray laakiin ma dhib badno. sometimes la iska cunaa ma sha Allah waa loo baahan yahay. khayr badan idin rajeynaa insha Allah. inta haysan Allah siiyo. inta haystan Allah u barakeeyo. barakallahu fiik. Thank you so much guys. I appreciate the watching the video. Thanks. aabe waa soo noqday. xalwadii hadda dejisay u baahan tahay. Okay, xilliga la dejinayo waaye mujadid. marka enjoy the video. Okay, weli waaye laakiin eeg hadda bakteeriya bahalka xiray ku dhigaysaa.
way ka haraysaa laakiin waxyara u dhiman waxyar aan lahayn u dhiman marka digsigii dhanaa buuxay halahaas ka soo haray ma garatay halahaas ka soo haray taasay noqotay maasha allah markaas saliidii tuftay majeedaan saliidii soo tufaysaa okay xoogay u baahan tahay hadda xoog mataqaani ayay u baahan tahay heelkiina waan ku daray iyo ma tusin markaan ku daray laakiin already waa idin sheegay waan ku daray ayda iri meeshaan xoog iyo marqa u baahan tahay okay ciyaar maaha kariskeeda okay guys okay waan ku daraye iyo xageeba halkaasaan ku xiray kan waan ku daray kana waan ku daray okay heel iyo jooskii isku jiro waan ku daray aad qaadadan heelan ku daray halfkeeda this one I add half teaspoon okay this one heel and this one I add half teaspoon too so good luck enjoy the video guys حلوة يقول حلوة نسي شكا عبدك فض قرية ديار وايا وحير عمعنا لهين كهري اوكي اوكي تصور عقصة ساس مرق ديار مجدة قولي انتي ساو راعيسو ولي وحيرا ولي من ساس مكيتها مجدة حوغا درير كاس اني احد مرق مجدة وانا كتك على عدك اي نقطة اوكي نقصد وينا actually I'm gonna do it this way. You see this? Let's have a look at that. Marcano. So there. You see? Do myself. وحيار أي نقطة دكسي لأن نحب نقطة وحيار. كمان يورب. No more a lot. It's gonna be like. This is nice حلوة ما شاء الله say ما شاء الله guys ما شاء الله لها إلهي سبحانه وتعالى أحكي أوردر جريستها وألفو علفة أو قدرة داونها وقدقو آمين يا الله صياعة حلوة معان وحلوة معان adduunka ku soo yaaca qabsatay ka yaaca ma jirto yaa ka soo yaaca iyo ku sii yaaca mujeda okay halwa is ready guys tak markay dhahdo mujeda this is halwa you see they come in small. The bowl is full before now.
You see, it's coming a little bit. See? All is gone. Let's put them out, guys. I'll eat them out. I'm just going to have a look. Yeah. I'm good here on the side. So, guys, how are you? ما شاء الله تبارك الله. على حلوة أم حلوة 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 معاني نقطي معاني نقطي ما شاء الله تبارك الله. Yes guys, see ما شاء الله لقيت جرة واحد درخان. اوكي بس إني نقطة على مركز كده جلست إني سلاس عشان كان نقطة وحدان وحسون نقطة هلا يريس. Oh, it's coming together. It's coming a little piece. See? قدينا يا هبدر خان صحن كذا الدم بيصير قرية نساء وقعتوا. اوكي ما كرنيش حلقة وأنا الساعة كعقتها سلاس وأنا كعقتها وأنا الساعة ولا قدت مجدة مرة عايزة بكتيرة قرية مرة عايزة وكا فصل الله عشان مجدة وين كنت مكان حلقة قرية مرة أساس ده وأنا كعقتها سبعتها مرة عايزة قرية ده حقيقة وكا مرة عايزة سبعتها مرة عايزة الديار سوق إنه صوت الطيب وكاساسة وبدنيس. There you go. شوفي. بس ما شاء الله. هاد صحن بقى نغطي. وروح ذا ما شاء الله عندي دواء وحاس. ما شاء الله تبارك الله أنا حقي نوايا وكوكاس. هذا قلنا يا هذا ما كان قليو وكاس ما عرفت امسح. هذا الغطاس مسوى راعيسو ويكرتي يعني من حكو شيء يعني كرتي من سقادة سوى راعي نارتان. اوكي ادوا حلود مدوق محاوله اللي هدينا يا وإذن سلام يا دمانتين انت تسكلكم مدوانبو فيديو بحقو ما شاء الله شاركي لايك سبسكرايب كومنت وحقينا جزاكم الله خير سيد في عام أول مرة إلى سوعتان فيديو ودابتان. Thank you so much guys. I appreciate for watching my video all the time. Thumbs like, share and comment inshallah. I will see you next video. Bye.